halkan waxaa soo buuxdhaafiyey kumanaan ciidan iyo shacab iyo sidoo kale madaxda dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar oo isagu la sheegay in 72 saac ee la soo dhaafay inuu ku sugnaa aaga dagaalka si uu dhiirigeliyo ciidankiisa dowlad deegaanka kuwaas oo la dagaalamayay al-shabaab oo gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida kadib 4 maalin oo dagaal culus oo waxba la isku reeban uu ka socday deegaano hoostaga gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida kaas oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidanka Liyu maanta jawiga ciidanka Liyu booliska iyo dowlad deegaanku waa u farxad iyo damaashaad fanaaniin iyo kooxaha dhaantada ayaa ilaa jigjiga laga soo daabulay si ay ciidanka ugu abaalmariyaan suugaan dhaanto hibo looga dhigay kuwaasi oo laga daaray codbaaxiyaal waaweyn waxaa halkaani safaf dhaadheer ku jira ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida kuwaasi oo guusha xaggooda ahaatay kadib dagaal culus oo ay la galeen dagaalyahanada al-shabaab waxaana qaarkood ka muuqanaya daalka diifta iyo sidoo kale soo jeedka 4 maalin ee dagaalku durba waxaa meesha laga daaray heesta noqotay wehelka ciidanka lagu dagaalgeliyo ee leh waad ilduuftee maxaan waana ku akhriyay taasi oo soo baxday waqtigii ciidanka New Booliska ee dowlad deegaanka ay dagaalada kula jireen dowlad deegaanka qowmiyadda ciidamada canfarta xilli ay ku soo duuleen dhulka dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar ayaa dhiirigelin u sameeyay ciidanka waxaana laga soo qaaday sawirro isagoo ciidanka gacan qaadaya qaarkoodna madaxa u salaaxaya isagoo oo leh waad guulaysateen shacabka iyo maamulka dowlad deegaanka ayaad sharaf u tihiin la'aantiin waxaan ahaan lahayn dad dulaysan ciidanka dhankooda waxaa ka muuqday raadka xaalkii adkaa ay ku jireen saacadihii la soo dhaafay buska carrada madaxa kaga taal oo u sii dheer tahay in qaarkood weli ay sii dhadhansanayaan rasaastii la isku ridayay dhinaca kale shacabka oo dhalinyaro iyo haween intaba leh ayaa dhankooda waxay wadeen saacadihii ugu dambeysay gurmad xoogan oo ciidanka la garab taagan yihiin iyagoo oo furmaha geenayay buskud caano iyo biyo iyo sidoo kale xoolo nool si ciidanka loogu qalo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa ciidanka iyo shacabkii soo gurmaday wuxuu la hadlay isagoo sheegay in maanta ay guul joogaan waliba federaalka ay tuseen in ay ka maarmaan isla markaana Soomaalidu ay yihiin dad la isku haleyn karo la sheegay in ciidanka dowladda federaalka Itoobiya la diyaariyay laakiin dagaalkii ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee New Booliska ay shabaab la galeen inaysan wali soo galin Mustafa Cagjar wuxuu sheegay in ciidanka Soomaalidu ay badbaadiyeen dhulkooda iyo sidoo kale dhulalka dowlad deegaanada kale ee Itoobiya gaar ahaan Oromiya taasi oo dowladdu ay sheegtay in ay ujeedka al-shabaab ahayd in ay ka gudbaan dhulka Soomaalida isla markaana Oromiya u gudbaan madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa sidoo kale wuxuu shaaciyay in maxaabiis badan oo qaarkood dhaawac yihiin oo al-shabaab ka tirsan la qabtay isla markaana hadda lagu daweynayo isbitaalada dowlad deegaanka sidoo kale hub iyo agabyo kala duwan iyo saanad ciidan ayaa wuxuu sheegay in laga qabtay iyagoona warbaahinta la tusiyay calanka al-shabaab iyo sidoo kale hub la sheegay in al-shabaab ay ku dagaalamayeen